subax adoo hurdo ka soo kacay akoonkaada oo eber ahaana aad ku aragto iyadoo ku jirto $100,000 bal daqiiqado gudahood ma ku isticmaal lahayd lacagtaas oo dhan. wiilkan lacag ku dhow $1 milyan ayaa akoonkiisa lagu soo qalday isagoo iska hurdaya, balse markii hurdada ka soo kacay wuu ku farxay lacagta lagu soo qalday sida in isaga uu leeyahay oo kale. laakiin sida dhaqsaha leh iyo meesha uu ku bixiyay lacagtii oo dhan waa lala yaabay. waxaase ka sii daran, dadka lacagta ay ka soo qaldoontay waa kuwan, waana dad mayal adag. waxayna gaartay heer dagaal uu dhaco, maxkamadna laysla tago, balse yaa qaldan yaase saxan. halkee ayuuse ku bixiyey lacagtii oo dhan? bal si deggan aan kuugu sharxo. wiilkan lacag badan muusan haysan, taajirna muusan ahayn. waa wiil ku nool dalka Australia, lacagtana aad buu u jeclaa. qof lacag necebna ma jirto, balse lacagtii uu raadinayay muddada fog ayaa akoonkiisa ku soo dhacday isagoo iska hurdaya. wiilkanna waxaa lagu magacaabaa Cabdilgaadiya, waa 24 sano jir. wuxuu ahaa wiil barta YouTube-ka kusoo gudbiyo heeso, wuxuuna ku nool yahay dalka Australia. akoonkiisa gaarka ah ayaa lagu qalday $100,000 isagoo iska hurdaya. lamaanahan ku muuqda iyagana u dhashay dalka Australia ayaa doonayay inay gataan guri weyn. lacagtii ay guriga ku gadan lahaayeenna muddo fog ayay shaqaynayeen. lamaanahan oo lagu kala magacaabo Tara Thorne haweenaydan iyo Adam Macro oo ah ninkan way israaceen. waxayna aadeen bangi si ay lacag kaash ah oo ay haysteen akoonka loogu soo shubo $750,000, balse hal lambar ayay ka qaldeen nambarkii akoonkooda. lacagtiina waxay ku dhacday akoonka wiilkan heesaaga ahaa ee Cabdilgaadiya. lamaanihii way iska baxeen iyagoo u maleynaya in lacagtii $750,000 ay ku jirto akoonkooda. laakiin markii ay gurigooda tageen, akoonkii ayay fiiriyeen, eber ayaana u soo baxday. lacagtiina kuma aysan jirin akoonka. way jahwareereen, way iska badbateen, wayna naxeen. bangigii ayayna ku laabteen, waxaana loo sheegay in lacagtii ay qof kale ku dhacday hal lambar ay qaldeen darteed. Cabdilgaadiya wiilkan lacagta markii lagu qaldeeyay akoonkiisa habeen bay ahayd, wuuna jiifay. subaxdii markuu hurdada ka soo toosay ayuu fiiriyey akoonkiisa, wuxuuna arkay iyadoo ku jirto $750,000. wuu ku farxay lacagtii, isla markiiba lacagtii oo dhan wuu isticmaalay. wuu baxay, dukaan dahabka lagu iibiyey ayuu tegay. $600,000 oo ka mid a lacagtii wuxuu ku soo iibsaday dahab, halka $110,000 oo kalena uu ku soo iibsaday dhar, kobo iyo shoobin. halka intii ka soo hartay lacagtana uu kaash ahaan ula soo baxay, si caadi ahna uu isticmaalay. wiilkan markii uu lacagta helay, safaro kala duwan ayuu ku dhex galay gudaha dalka Australia. magaalada Sydney, magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala ayuuna safaro gaagaaban isaga galay isagoo ku faraxsan lacagtii uu helay. asxaabtiisa oo idil ayuuna casuumaad heerkeedu sareeyo u samayn jiray maalin kasta. lacagtu uu isticmaalayayna ma ogeyn inay tahay lacagta lamaanahan rafaadka badanna ay ku soo shaqeeyeen, si dhib yarna isagu u isticmaalay. lacagtii lagu soo qalday oo dhanna waqti hore ayuuba ninkan isticmaalay. lamaanihii waxay bilaabeen inay raadiyaan qofka lacagta ku dhacday kuna qaldoontay, iyagoo dacweeyay Cabdilgaadiya. booliska ayaana wiilkan dabagal ku sameeyey. mar dambe ayaana lagu guulaystay in lasoo qabto. xabsi ayaana loo dhaadhiciyey, ilaa haddana xabsi ayuu ku jiraa. waxaana wax laga weydiiyey lacagtii lagu soo qalday oo ay lahaayeen lamaanihii. markii hore lacagtii wuu inkiray inuu isticmaalay, laakiin muddo kadib ayuu qirtay dembiga, wuxuuna sheegay inuu qarash gareeyay dhammaan lacagtii lagu qalday isaga, waxna uusan ka reebin, xitaa hal shilin. lamaanihii waxaa fajac la noqotay in $750,000 oo ay muddo fog shaqaynayeen, muddo yar uu ku isticmaalo wiilkan, si fududna u bixiyo. lamaanahanna way diideen inay cafiyaan wiilkan, waxayna ku adkaysteen inay rabaan lacagtooda, marnaba aysan ka samreyn. si walba ay tahayna lacagtooda ay u baahan yihiin. hadda wiilkan wuxuu ku xiran yahay xabsi ku yaala gudaha dalka Australia. bisha soo socota ee December 2 ayaana maxkamadda ay go'aan ka gaari doontaa sida laga yeelay ninkan. December 2 waa go'aanka kama dambaysta ah maxkamaddu ay gaari doonto.
iyadoo maxkamaddu ay goobjoog ka yihiin lamaanihii lacagta soo qalday, qoyska wiilkan iyo isagaba. maxkamadda ayaana go'aan ka gaari doonta sida wiilkan laga yeeli doono, haddii lacagta uu gudi doono, haddii lamaanaha ay cafin doonaan, iyo haddii maxkamaddu go'aan ka duwan midka ay rajaynayaan lamaanahan ay soo saarto. 2 Diseembar ayaase ah maalinta ugu dambeysa ee la xukumi doono. inta ka horeysase wuxuu ninkan ku jiri doonaa xabsiga, maadaama lacagtii oo dhan uu wada isticmaalay, wada bixiyeyna. muuqaalkii maanta intaan ayaan kusoo koobayaa. haddii aad ka heshay like saar, siina sheer garay si uu u gaaro asxaab fara badan. waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. tan iyo muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaane Allah. waa anigoo ah Juula Shaakir oo idin leh nabadgelyo. fadlan haddii aadan subscribe saarin janaalkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno.